about it. To be honest, first of all, let me... haddii aan si daacad ah kuula hadlo runtii ma ogeyn in dadka Soomaalida ay daawadaan aflaantayda. Marka hore waxaan leeyahay qof walba oo Soomaali ah oo i dhageysanaya sanad wanaagsan. Xaaladda Soomaaliya aad baan ugu warhayaa. Waana ku faraxsanahay in dadka Soomaalida ah ay taageeraan oo ay daawadaan aflaanta Hindiga. Soomaalidu waa dad aan aad u ixtiraamo. Waxaan rajaynayaa inaan imaado Soomaaliya. waan gartay marka agshay arrimaha Soomaalida haddii aan kala hadlo Soomaaliya iyo waliba deegaanada kale ee Soomaalidu degan yihiin dadka aad bay u daawadaan aflaantaada oo loo turjumay luqadda afka Soomaaliga waxaana dadka qaar ay ku yaqaanaan magaca Mr. Bon marka arintaasi maxaad ka ogtahay I didn't know anything about it. To be honest, first of all, let me... haddii aan si daacad ah kuula hadlo runtii ma ogeyn in dadka Soomaalida ay daawadaan aflaantayda. Marka hore waxaan leeyahay qof walba oo Soomaali ah oo i dhageysanaya sanad wanaagsan. Xaaladda Soomaaliya aad baan ugu warhayaa. Waana ku faraxsanahay in dadka Soomaalida ah ay taageeraan oo ay daawadaan aflaanta Hindiga. Soomaalidu waa dad aan aad u ixtiraamo. Waxaan rajaynayaa inaan imaado Soomaaliya. run ahaantii ma ogeyn taageerada iyo hayaan Soomaalida balse waad ku mahadsan tahay inaad ii sheegtay. Thank you for telling me this. waan gartay marka adigu ka shakhsi ahaan maxaad ka aaminsan tahay Soomaaliya iyo dadka Soomaalida ee daawada aflaantaada I believe it must be a great looking and a beautiful country. waxaan aaminsanahay in Soomaaliya ay tahay dal muuqaal wanaagsan oo qurux badan. Fadlan waxaan ka codsanayaa inaad ii soo dirto muuqaallo qurux badan oo ku saabsan Soomaaliya. Aad baan u jeclaan lahaa inaan arko sawirrada quruxda badan ee Soomaaliya. waxaan barta Google ka daawanayay dhammaan sawirrada Soomaaliya. Ma malaysan kartid sida Soomaaliya u qurux badan tahay marka laga eego xeebaha. Waxaa kaloon aad u xasuustaa in caasimaddu ay tahay Muqdisho. Dalkaasi waa dal aad u qurux badan. If I remember, it was Mogadishu, the capital. How beautiful is your country? agshay waxyaabaha inta badan ee dadku isweydiiyaan waxaa ka mid ah khatarta ka soo wajahdo markaad samaynayso aflaanta actionka ama aflaanta ku salaysan dagaalka. marka arrimahaasi maxaad inooga sheegi kartaa Well, I do a lot of action, but run ahaantii waan sameeyaa aflaan badan oo action ah balse inta aan filmka samayn waxaan sameeyaa taxadar aad u badan. I take a proper care before I do it. ugu dambeyntii marka maxaad jeclaan lahayd inaad u sheegto dadka Soomaalida ee ku dhageysanaya I would like to tell them, first of all, to come and watch Padman. waxaan jeclaan lahaa marka hore inaan u sheega inay daawadaan filimka cusub ee Padman maxaa yeelay waa filim u wanaagsan caalamka dalkayga iyo Soomaalidaba. waxaa kaloon jeclaan lahaa inaan u sheega in caadada dumarka ay tahay wax dabiici ah. waxaa kaloon dadka Soomaaliyeed u sheegayaa inay ilaaliyaan oo ay ka taxadaraan waalidiintooda gaar ahaan hooyooyinka. Especially their mother. kaasi waxa uu ahaa jilaaga caanka ee dhanka filimada Bollywood-ka ee waddanka Hindiya Akshay Kumar oo u waramayay